السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليل مانتا waxaan jeclaystay inaan xagga nugula wadaago basasha iyo faa'iidadeeda inkastoo walaalayaal qudrawaadka iyo fawaakiga oo dhan ee aan qoodano inkastay nacamgeed walba oo kamid ah faa'iido badan aan ka helo oo wax walba alla noo abuuray ee cunayno ay aan ka helayno oo jirkeena oo ka helay faa'iidooyin badan haddana faa'iidooyinkan kala helaynay waa u kala badan yihiin laakiin wax khasaare ah oo geedaha cunayno oo cunto ama wax kastaan ku darsanayno oo na faa'iidaan ka heli haba yaraatee ee ma jirto wax walba oo isticmaalayno faa'iidadeeda oo wata maadaama faa'iidadeeda wato waxaan rabaa oo jeclaystay maanta inaan basasha si yar oo guud ahaaneed faa'iidadeeda aan nugula wadaago oo faa'iidadaas basashu oo waliba basashan cadaanka iyo takale basasha akhtarka ee yara dhuudhuuban iskeed loo cunaynta ugu badan labadaba waa kuwa aad loo cuno loo quuto tacasaanka iyo takale huruuda kuwaas waxa kuwa kale lagu yar daro cuntooyinkan badi u isticmaal الله إنك سيجب فائدة ليه ما دام من دبق جليا أو وحنا خسارة أن لهينا يجرين اللي يبصش عاد أيام يقولوا ذاك الهاي وتأخترك فائدة ديدا ولا ليال أنت أنا عشر كهروسي جرين وحربا أما جيت كان شيء كدي سان هروسي جرين وحربا إن يعني كهلو بين channel كان سبسكرايب يشيرين كا يلايكا سيأون نقطين نعم قفكي فيديوهاش مركان سو جرينو تذكي أخر حلا إنك أنا جنا وحين نجت هاي أمر معها codsi bay naga tahay si anaguna han u helo dhiirigelin aan hore ugu sii socon karno wixii aan rabnay inaan ummadda u soo gudbino iyo waxyaalahan aan jecelnahay inaan ummadda soo wadno nigula wadaagi doono insha Allah xilliga walaalayaal cashirkeena hadda siga soo noqonayna basasha faa'iidooyinka laga helay waa aad ba u badan yihiin inkastoo na soo yar qaadan dhowr xabaan soo qaadan basashu waxay wiqaayo u tahay nacam waxay badbaado u tahay ilaalisa qalbiga bini'aadanka caafimaadkiisa waa ilaalisa si ugu dhicin inuu qalbigu mar qura istaago ama oo xubno dhiigahay toos iyagii oo toos hay u galaan basashu waxay uga tahay ilaalay uga tahay oo faa'iido uga tahay dawo uga tahay qalbiga iyo waxa faa'iido kale u tahay neeftan aan qaadanayno oo dhan xididada neefta oo dhan aan qaadanaynana faa'iido aad u muhiim ah ayay uga tahay oo yadna taana waxay u tahay faa'iido iyo jirkeena walaalayaal waxay ka nadiifisaa sunta iyo baalkii bakteeriyada dhibaatadan lana nacamdan dhibaateynaysan baalkii ula dagaalantaa basashu waxa kale ay waxaysaa iyo subaga oo ama kristoolka oo jirkaaga soo galayana inta ugu badan jirka way ka gubtaa way ka ilaalisaa subag badan jirkaaga ha u qaadan taana waxay ku tahay yadnaheed dawo u tahay waxa kale ay leedahay basashani baalkii firfircooni badan qofka dadkan isticmaalinta ugu badan firfircooni bay gelinaysaa oo nacam qofkii awood oo inuu wax ku qaban karo wax ayay siinaysaa oo qofkii ma fadhiisanayo markaas waxay siinaysaa quwad ziyaada ana way siinaysaa waxa kale ay faa'iidadeedu ay leedahay basashu sonkortana aad bay ugu fiican tahay oo sonkorta aad bay ugu fiican tahay oo sonkortana hoos bay u dhigtaa in macaankan nacamde qofku inuu macaan ku dhacanayadna ilaalay uga tahay aad bay ugu fiican tahay inuu qofku ha isticmaali karo waxa kale basashu faa'iidadeedu ay leedahay oo dawana u tahay qabowga oo qofku markuu dhaxan hayso ay ku dhacdo nacam xanuunsanayna duri iyo ama hargab ay ku dhacdana basashu taas faa'iido u leedahay waxay kale faa'iido u leedahay dhagahana faa'iido ay aad ugu leedahay iyo calooshana faa'iido badan bakteeriyada iyo waxna way kala dagaalantaa oo yadna xagaasina faa'iido badan ayuu jirkaaga ka helayaa waxa kale ay waxaysan basashu oo jirka qofka bini'aadanka faa'iido uu kaga helayaa nidaamka sonkorta jirkaagana way ilaalisaa tawaasunka nacam waxay u ilaalisaa maaragtay nacam inuuna jirkaaga
hore ugu sii badan oo de macaan badan oo jirkaaga hore u qaadana taana aad bay u ilaalisaa oo waxay iyada xafidaysaa si aana qofkii u isticmaalo nacam jirkiisii oo ama xanuunkii macaanka la yiri ku dhicin iyadna taana aad bay uga ilaalisaa waxa kale oo ay faa'iido u leedahay lafahana way dhistaa basashu oo basashan cadaanku lafaha oo dhan way korisaa oo lafahaaguna waxay ka dhigaysaa lafo aad u adag ayay ka dhigaysaa iyo maaragtay dhaqdhaqaaqa markuu nacam lafihiiba ishoqeeyo waxaana iskama dareemaysid jirka lafahaagana aad bay u dhisaysaa oo faa'iidooyinka ugu fiican oo qofka inta ugu badan laga helo ayay u tahay maadaama qofka bini'aadanka lafihiisii ay dhisayso basashu waa shay'aasha ugu fiican dhinaca marka la helo faa'iido nacam waxay ugu faa'iido badan tahay oo de inaan aad u qodanayna fiican tahay basasha cadaanka iyo tani kale ee basasha yar ee dhuudhuuban iskeedina loo cuno marka waxay sanayno salaadkii waxa lagu daro inaan qofku moogaan oo cuno soo faa'iidooyinka aan soo sheegnay ha uga faa'iideysto hawna u cuno oo de jirkiisina ha uga helo inkasta oo hore basaan uga soo dhawaaqiyay aan jirin geed aan faa'iido lahaynin laakiinse wixiina lagu kala badan yahay oo inuu ogaado baa fiican dadku inay ogaadaan maxaa waxaan ka helayaa baa fiican geedku qofku markuu shay ku og yahay faa'iido yar oo ku og yahay markuu cunayo soo faa'iidadeedii xasuusan haday u dhadhamayna isku yar qasba sida uu faa'iidadii uga helo haduu qofkii geedku waxba ku ogeyn wuxuu leeyahay wariga daama cunay buu leeyahay xilligaas maxaa yeelay ilaa ma ogo faa'iidadu geedka jirkiisa uu leeyahay xilliga qofku waxa fiican inuu ogaado waxyaalaha uu ka helayo ama ha u bataane ama ha yaraadaan inuu faa'iidadaas sidoo uu ka helay inuu ogaado baa u fiican waxaan walaalayaal xaga niga tagayaa ma rabo inaan videoga si aan wado oo in badan ay say dadku mal uga qaadaan faa'iidooyinka yar inaan uma jeclaysi inaan igula wadaago waxaan niga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh iyo noolad dambe